xukuumadda dan qaran 3 sano hadda u gabagaba qorshayaal bay la timid xukuumaddu ku timid markay imaanaysay talada ay rabto inay fuliso qorshayaashaas marka xukuumadda maxaa u qabsoomay ugu waaweynaa shalay dhowr iyo 20 qof ayaa maadana 30 gaareen ayaa tartamay qof kasta oo stage ka soo istaaga labadaasu dadka Soomaaliyeed ka gariyo u sheegay haddaan anigu madaxweyne noqdo waxaan idin ballanqaadaya dastuurka inaan dhammaystiro waxaan idin ballanqaadaya dalka inaan gaarsiinayo qof doorasho qof cod xaaladu wuxuu ekeyd dhanka u sii jeeda way muuqanaysay waxay intaa weheliya walwalkan ka jira African Unionkii meel saarnayn dhaqaalihi ku shaqayn lahaa walwalkaas ma qabtaan haddii qabtaan ka xukuumad ahaan qorshayaal inay ka diyaarsan oo nala wadaagaysan jiraan ma jiro caasimadan waa la qabsanayaa cabsinina ma jirto haddaad fursad u heshid Soomaali inaad hal kelimad ku tiraahdo hal farin maxaad oran lahayd dastuur la leeyahay 20 iyo dhowr sano oo lagu dhamayn karo 2 weeks oo leeyahay 20 sano uu yaalaa oo dastuurkii adduunka ugu kharashka badan uu galay waqtiga ugu badan qaatay dunida dadka Soomaaliyeed way ku daareen waan ceeb doorashada waa saad sheegtay waa la wada rabaa doorasho qof mujtamaca Soomaaliyeed qofka danaas waa meeshiisa laakiin mujtamaca Soomaaliyeed صغير كبير وهربان عد يشان أو تغلو حكو يشان أو تغلو وهربان قول لكم بركم شو كجرا كان قول لكم كجرا دور شرطة أستيد لما موقف سومي كرتا يضع حلال موقف سومي كرتا dadku qasab maaha kulli in ay hal arag loo warqaato qasab ma taswaqo doorasho qof iyo oda ee la galo commissioners-ka ay soo baxaan council soo baxaan mayorkood ayagu ay doortaan Puntland xukuumadda markay dhalatayba طبعا la bilaabatay problem waa jira horeyna u soo jirtay طبعا laakiin tani ay waxoogaa muddo inay extreme tahay hada xalaq وحمزة عبد البر وتيجي أنا صومالي هدي بين نقطة عفوا مسكين فرصة